qisooyinkani nebiyada waxaan isla soo gaarnay nebi ibraahim calayhi salaam aabihii nebiyada. nebi ibraahim calayhi salaamna uu la yaabanaa qowmkiisa run ahaantii sidii u caabudayaan sanamyo aan waxba taraynin, laakiin qowmkiisu maadaama wiil dhalinyar ahaa waqtigaas wax weynba kamay soo qaadin oo iska dhaafi jirin hadalkiisa ilaa laga soo gaaro maalin maalmaha kamid oo qowmkiisu maqnaayeen ayuu isagu magaalada ku haray. kadib uu sanamyadii dhammaantood burburiyey, hal mid keliyana kasoo reebay. qowmkiisi markay soo noqdeen waxay dhaheen yaa sidan sameeyey, yaa sanamyadan burburiyey. markaasuu nebi ibraahim calayhi salaam ugu jawaabay kooda weyn ayaa burburiyey, macnaheedu sanamyadii dhammaantood jajabiyey ayuu hal mid oo weyn kasoo reebay. kadib uu seeftii qoorta u sudhay, uu dhahay sanamkaa weyn ayaa burburiyey sanamyadii kale. qowmkiis way yaabaan, dib ayna isugu noqdeen run ahaantii, waxaana yidhahdeen idinka ayaaba khaldan, sidee uu sanam u burburin karaa. nebi ibraahim calayhi salaam ay imaadaan, waxaana ku dhahan sanamyadan waxba ma dili karaan, waxna ma samayn karaan. iyagoo og intaas ee haddana caabudeen sanamyadii. ugu dambeyna way ogaadeen in nebi ibraahim calayhi salaam uusan sameeyey. kadib wuu u tashteen, waxaana isku dhahaan u heyliya ilaahyadiina, macnaha sanamyadiina u heyliya oo qofka ficilkaas sameeyey uga soo arguda sanamyadiini. nebi ibraahim calayhi salaam way soo qabtaan, kadib dab aada ugu imbeshadaan si qisada ku wada naqaano. nebi ibraahim calayhi salaamna gacmaha ay ka xidhaan, kadib ay dabka ku tuuraan iyagoo adeegsaneen manjaniiq. manjaniiqna waxaa la idhaa waqtigii hore hub la adeegsan jiro, aalad military ayay ahayd oo gidaarada magaalooyinka ku haraaraysanaa lagu burburin jiray inta meel fog laga soo tuuro dhagax. saa darteed manjaniiqaas ay adeegsanayeen, maadaama dabku aada u ballaarnaa cid u dhawaan karayso nebi ibraahim ku tuuri karaysa may jirin. marka manjaniiqaas ay nebi ibraahim inta ku rideen ay bannaan kaga soo tuureen. nebi ibraahim calayhi salaamna keliya wuxuu ku celcelinayay xasbuna allahu wa nicma alwakiil. nebi ibraahim markuu dabka gudihiisa ku dhacay, ilaahi subxaana watacaala dabkii wuxuu ku yidhi kunii bardan wasalaaman calaa ibraahim. dabkii ay muddada badan shidayeen oo xaabooyinka usoo urursanayeen awoodiisiiba oo ka tagtay. waxuunba arkaan nebi ibraahim calayhi salaam oo iska dhex taaganba dabkii, manuu guban, keliya wuxuunbaa gubtay xadhkii gacmaha kaga xidhnaa ayuunbaa gubtay jirkiisa, wax kale waxama noqon. suu dabka u dhex taagnaa ayuu markii dambena soo baxaaba oo dadka soo agmaraa. mucjiso run ahaantii aada u weyn bahayd, laakiin qowmkiisa cid rumaysa ma jirto marka laga reebo luut mooye nebi luut. sheekadii ahayd nebi ibraahim calayhi salaam ayaa dabka lagu tuuray, kadib dabkii buu kasoo dhex baxay. magaalada si u dhammeyd way gaadhay ilaa ugu dambeynta boqorkii ka gaadhay wadanka. boqorku dhinac kale ayaabuu fikiro, wuxuu yidhi ninkan dadka saxray, macnaha sixir buu arkaysa, ninkan dadka saxray dadku kaa kaxaysan doonaa oo dadku isaga ayay raaci doonaanba. marka boqortooyadaadu halis ay gelisa. markaasuu yidhi halay keena ninkaas. boqorkaas magaciisana waxaa la dhahdaa namruud, waana boqor waqtigiisii dunida keligii ka taliyay. nabi maxamed sal ly slam markuu inoo sheegayo wuxuu leeyahay 4 nin ayaa dunida keligood ka talisay, waxaana kamid ah 4 nin namruud. boqorka namruud nebi ibraahim calayhi salaam markuu imaado wuxuu weydiiyaa sidee saan u samaysay wiilyahow. nebi ibraahim markaa dhalinyar weeyaan, sidee saan u samaysay ayuu ku dhahdaa. nebi ibraahim calayhi salaamna markaasuu ugu jawaabaa anigu maan samaynin, ilaahi subxaana watacaala ayaa sameeyo dabka iga badbaadiyey. namruud marka nin keligii dunida ka talinay ayuu ahaa, wuxuu isku arkayba ilaahay inuu yahay. markaasuu ku ma ilaahan aniga ahayn ayaad leedahay ibraahimo. nebi ibraahim calayhi salaam markaasuu u sharaxay ilaahi subxaana watacaala waa ilaaha ceerka abuuray, dhulka abuuray, anigii adigana abuuray, ina dilayna soo noolaysiinayna. namruud waxaas ma maryaanba, isaga ayaa isku arkay ilaah. markaasuu yihi aniguba waan soo noolaysiin karaa, waan dili karaa, sida qisada caanka ee qur-aanka ilaahi subxaana watacaala inoogu sheegay. namruud marka wuxuu sameeyaa 2 nin oo xabsiga ku jiro daldalaad lagu xukumay uu soo qabtaa. labadooda midna uu dilaa, midna uu fasaxaa. markaasuu ibraahim ku dhahaa midna waan dilay, midna waan noolaysiiyey. nebi ibraahim calayhi salaam murankaaba muu gelin, keliya wuxuu ku yidhi ilaahi subxaana watacaala cadceedda bariga ayuu ka keenaa, adigu galbeedka ka keen. namruud uu yaabay. namruud markaa caqligan ayuu la yaabay nebi ibraahim calayhi salaam. markaa wuxuu sidhi ninkan haddaad disho waad ku fashilmi doontaa sida qoomkaagu ugu fashilmaan oo kale, oo dabbi ku ridan uu iska soo dhex lugay, dabkii uu kasoo dhex baxay. marka waad ku fashilmi doontaa oo halis ay boqortooyadaada ku noqon doonaa. marka wuxuu amray nebi ibraahim laga fogeeyo dhulka xukumo dhan, boqortooyadiisa oo dhan in laga saaro. nebi ibraahim ayuu amaraha bixiyey. nebi ibraahim calayhi salaamna uu iskaga soo baxaa dhulkii uu namruud ka talinayay, waxaanu imaadaa shaam. waxaa la socday nebi luut oo keliya oo ahaa halka qofka keliya rumeeyey. markii shaam soo galay nebi ibraahim calayhi salaam, luut wuxuu amray inuu tago ilaahi subxaana watacaala dacwadiisa sii faafiyo, isaguna magaalo kala tago. nebi luut calayhi salaamna wuxuu tagaa magaalo mutafika la dhahdo, magaalo iyaguna qiso run ahaantii aada u cajiiba leh. magaalada nebi luut uu tagayo calayhi salaam waa magaalo dhaqamaada xunxun ka jiran oo nin iyo nin laysku guursanayo. ilaahi subxaana watacaalana qaab daran ayuu halaagaa qowmkan
oo qoomka Luut ahaa. Qisada qoomka Luut waxay dhacdaa isla waqtiga qisada Nabi Ibraahim alayhi salaam socoto, laakiin marka hore Nabi Ibraahim alayhi salaam qisadiisa ay soo dhamaynayna kadib ay Nabi Luut ku xigsiinayna insha Allah. Nabi Ibraahim alayhi salaam wuxuu imaadaa magaalo Xawraan la dhahdo. Magaaladan dadka deganaa ruuxaantii dad aad u cajiib ay ahaayeen, dad xidiga caabudi jiray ay ahaayeen. Nabi Ibraahim alayhi salaam muddo ayuu la noolaa oo dadkan daraasaynayay kadib wuxuuna raadinayay intaas oo dhan qaab dacwada ugu dhex faafiyo. Reer Xawraan dad cajiib ay ahaayeen, dad waxa doonaa iska caabudi jiray, mid badeexa iska caabudaan Ilaahaygu waa kaas, mid kale cadcad iska caabudaan ma Ilaahaygu waa kaas, midba kawaakibta iska caabudaya. Dad ruuxaantii aad u cajiib ay ahaayeen. Nabi Ibraahim markaa xaalad cajiib ayuu keenay. habeenada kamid ay baxeen reer Xawraan si mid walba u soo caabudo, kii deexa caabuday, kii cadcad caabuday. Nabi Ibraahim noo raacay kadib ayaa kowkabka Venus la dhahdo ama Zuhra la dhahdo ayaa habeenkii soo muuqda marmar. kowkabkaas Nabi Ibraahim yiri ani Ilaahay waa kaas. Nabi Ibraahim muu caabudin marnaba kowkabkaas, wax ficil kale muu sameyn, kaliya xaalad uu adeegsanay qoomkan ay ahayd. wuxuu yiri ani Ilaahay waa kaas. kadib subaxdii markuu waagu bariyay kowkabku dawcan u baabay, markaasuu yiri ani Ilaahay haddaan u baahanahay aw Ilaahaygi macna Ilaahan iska tagay muxuu ahaa. markuu Nabi Ibraahim alayhi salaam sidaa yiri qaar baa ruuxaantii dab u fikray oo islahay طبعا uu saxsan yahay Ibraahim. habeenkii labada haddana soo raacay, markii soo cibaadada tagay haddana soo raacay, markaasuu yiri Ilaahay hore macna aan doortay uu iska tagay, Ilaah tagtay aanu mar rabo deexaasan Ilaah ka dhiganaan Ilaahay waa kaas. kadib subaxdii markii gaadhay deex haddana baabay, markaasuu yiri anu Ilaahay haddaan u baahanahay macna aw Ilaahaygi Ilaahan iska tagtay muxuu ahaa. subaxdii markii gaadho iyadana deexi waayay ay cadcad soo baxday, markaasuu yiri anu kanaan Ilaahay ka dhiganay cadcad ayaa kana xoogaa yara weyn kanaan Ilaahay ka dhiganay. kadib markii habeen gaadhay dabcan cadcad luntay markaasuu yiri qoomkaygaanu waxaan bari ayaan ka ahaydin kuma jiro, waxaan caabudaysaan kolba iska baabaya. anu waxaan caabuday Ilaahay subxaanahu wa tacaala, Ilaaha cadcad deexa waxaan oo dhan baabuuray dhammaantiis. run ahaantii xaalada cajiib ay ahayd, waxaana qaarkoodba dib isku geer noqdeen, dib u fikreen waxyaabaha ay caabudeen, dib u geer shakiyanba. laakiin Nabi Ibraahim alayhi salaam qoomkaasi ma rumaynin. qoomkan reer Xawraan Nabi Ibraahim alayhi salaam ugu yeedhay xagga Ilaahay in Ilaahay subxaanahu wa tacaala caabudaan, Ilaahay cadcad deexa waxaan caabudeen oo dhan Ilaahay abuurtay in Ilaahay subxaanahu wa tacaala caabudaan, laakiin reer Xawraan way ka diideen. Nabi Ibraahim alayhi salaam wuxuu go'aansaday inuu safro dhankaasi Masar. intaanu safrin ka hor wuxuu guursaday in adeertii Saara waxa ahayd gabadhii labaad adduunka ugu quruxda badnaa marka laga yimaado hooyadeen Xaawa. Saara ayaa talabaad ahayd gabadhii ugu quruxda badnaa adduunka. Nabi Ibraahim alayhi salaamna intaanu Masar u safrin Saara ayuu guursaday. Nabi Ibraahim alayhi salaam iyo Saara waxay bilaabeen inuu safraan dhankaasi Masar intaanay gelin ka horba waxa warku gaaray boqorkii Masar oo iska shaxaari ahaa. boqorkii Masar in gabadh aad u qurux badan Masar ku soo socoto oo Masar soo geliso, markaasuu boqorka durbaceeda madaray oo yiri ninka la socda gabadhaas hadduu ninkeeda yahay dila, haddii kalena iska daaya. Ibraahim alayhi salaam ayaa askariya casoo timaada kadib ay ku dhaadaan gabadhan maadaa qaba, markaasuu ku dhaadaa may waa walaashay, oo wuxuu ka wadaa macnaha waa walaashiis muslimka ah oo binaadamku markooda horeba waa walaalo. askartii marka Saara ay ka haysteen oo boqorkii u geeyeen. Saara markay boqorkii u timid waxay dareentay in boqorkan rabeen uu xumeeyo. markaas Ilaahay subxaanahu wa tacaala bariday oo ku ducaysatay oo tiri Ilaahay haddaan adiga ku rumeeyay, rasuulkaagina rumeeyay Ibraahim alayhi salaam, farjigeygana ilaashtay oo aan wax zina ku dhicin, Ilaahay kaafirkan haygu sallidinay tiri. boqorkii markuu Saara u soo dhawaaday uu siidhay qabo gacanta ku soo taagay, gacantiisu way qallashay. kadib ay ku yiri isiida oo ku dili. Saara way baqday, kadib Ilaahay subxaanahu wa tacaala haddana bariday inuu Ilaahay siidayo, kadib ay gacantiisa caadi noqotay. boqorka haddana muu istaagin, mar labaad haddana gacanta ku soo taagay, markaas Ilaahay bariday Saara, gacantu way qallashay haddana boqorka. markaasuu mar labaad bilaabay inuu ka cabsiyo ku yiraahdo oo ku dili haddii kale siida. Saara way baqday, haddana Ilaahay ay bariday inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala siidayo, gacantiisa caadi noqotay. damca rag waa iska imtixaane, mar kale ayuu haddana soo cararo bilaabay inuu gacanta u soo taago, markaas ay gacantu qallashay. Saara laakiin marka waxay ku tiri kuma sii deynayo ilaa yadii damaanad qaadayso inaan idin dilayn. markaasuu ku yiri dil iska daaye, waan ku karaamanaya, xataa hadiidan ku raacinaya ee siida. markaas Ilaahay subxaanahu wa tacaala barida oo gacantiisa caadi noqota boqorka. kadib ayuu askartiisu u yeedhay oo dhahdo shaytaamada niga saara, dibna ha igu soo celinina, hadiida badan oo siiya. Masar ayaa laga saaraa Nabi Ibraahim alayhi salaam iyo Saara, Ilaahay u naxariista. waxaanu boqorku soo ballan qaaday hadiida badan oo siiya. hadiidaasna waxa kamid ahay gabadh jaariyada oo la yiraahdo Haajara. halkay tagay Nabi Ibraahim alayhi salaam, Saara iyo Haajara halkayse ku dambeeyeen. waa muuqaalkina dambe la soco insha Allah. wassalaamu calaykum.